gelinka dambe ee maanta waxaa la filayaa in magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar uu ka dhaco heshiis u dhexeeya kooxda Xamaas iyo Israa'iil kaasoo ku wajahan in la soo afjaro gumaadka muddada sanadka ka badan ka socday marinka Gaza. heshiiskan oo maalmahanba dhinaantiisu socotay waxaa xalay dhinacyada loo gudbiyey qabyo qoraalka uu ka kooban yahay qodobada heshiiskaasoo gelinka dambe la filayo in la kala saxiixdo. qodobadan dhinacyadu wax diidma ah kama muujin. haddaba heshiisku muxuu ku saabsan yahay mase ka duwanaan doonaa kuwii hore ee sida fudud ku burburi jiray ama aan sii waari jirin? ugu horeyn, heshiiskan oo isugu dhafan xabad joojin, la kala wareegista maxaabiista iyo soo afjaridda dagaalka waa mid ay dabada ka riixayaan dhowr qodob oo isbiirsaday, kuwaasoo ay ka mid yihiin inuu kursiga yimid Donald Trump oo doonaya inaan dhaqaale dambe lagu bixin dagaalada uu Maraykanku maalgeliyo ee dunida ka socda. labada dhinac oo kala daalay una bislaaday inay nabad qaataan waa Xamaas iyo Israa'iil oo dani u run sheegtay awoodna u weyday inay ka adkaato kooxda Xamaas. haddaba aynu eegno qodobada ku jira heshiiska. qodobadaas waxaa ka mid ah in ciidanka Israa'iil ay ka baxaan meelaha ay kaga sugan yihiin marinka Gaza si tartiiba, macnaha in aanay hal maalin yaacin si aanu khasaare u soo gaarin Israa'iil. 2, in Xamaas ay ooda ka qaado 33 maxbuus oo u badan dadka ay da'doodu ka weyn tahay 50 sano iyo weliba carruur iyo haween. sidoo kale waxay Israa'iil iyaduna sii dayn doontaa maxaabiis tiro badan oo reer Falastiin ah. 3, in laga wada hadlo sidii loo maamuli lahaa marinka Philadelphia oo ka mid ah meelihii ay Israa'iil xoogga ku qabsatay, kaasoo ay Masar qudheeda talo ku yeelan doonto. 4, in la fasaxo gargaarka bini'aadanimo iyo wixii taakula ah oo loo wado dadka tabaalaysan ee reer Falastiin. 5, in reer Gaza loo ogolaado inay ku laabtaan guryahoodii laga barakiciyey iyo aqaladoodii dabaabadaha iyo duqeymuhu ay dambaska ka dhigeen. heshiiskan dhaqangelintiisu waxay socon doontaa muddo 42 maalmooda, waxaana muddadaas lagu qaban doonaa la kala wareegista maxaabiista, bixitaanka Israa'iil iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka reer Gaza. marka 42daasi maalmood ay dhammaadaan, waxaa lala kala wareegi doonaa maxaabiista dhiman, waxaa la soo afjari doonaa dagaalka, waxaana xaqiiqdu tahay in heshiiskani uu yahay mid kama dambaysa, balse muddadaas loo siiyey si loo qariyo jabka Israa'iil iyo inay faraha ka laabatay arrimaha Gaza. magaalada Dooxa oo ay hawshu ka socoto waxaa maanta ku sugan madaxda ugu sarreysa Maraykanka oo iyagu wakiil ka ah dhinaca Israa'iil iyo dowladda Qatar oo iyaduna wakiil ka ah kooxda Xamaas.